habeen wanaagsan daawadayaal halkani waa London ku soo dhawaada barnaamijka caawiya caalamka magacaygu waa Farxaan Maxamed Jimcaale qodobada wararka ugu waaweyn waxay kala yihiin isbahaysiga Sacuudiga uu hogaaminaya ee dagaalka Yemen ayaa kala qaybsamay iyadoo gooni u goosatada Imaaraadku taageerana ay la wareegeen gacan ku haynta dekedda magaalada Cadan warbixin ayaanu idinkaga haynaa arrintaasi qodobada kale caawan waxaa kamid ah kala eryis ayaa ka socota Hong Kong kadib 10 toddobaad oo isku xiga oo banaanbaxyo ay sameynayeen kooxaha dimuqraadiyadoonka Beijing ayaa si uga digaysa Britain inaanay soo faragelin koronto la'aan xun ayaa ka taagan waddanka Zimbabwe taasi oo laga cabsi qabo in haddii ay sii taagnaato ay baabi'in karto dhaqaalaha liita ee waddankaasi وأرضيها قاضي ترتنكا ماراثون كقاهرة سنة كان وحاودون يا إن مالن صوماليا وأردو قضبة أسيو قوة كلاياتكم مغلدون تفاقدات ده عيارها عاوة كلا صعوب BBC نيوز صومالي تلفزيون كراديها أونلاين كا يبغى قبل الشدة هل كان لندن برامج كانوا عاوة يا عالم كان waxaan ku bilaabaynaa dhaxal sugaha boqortooyada Abu Dhabi Mohammed bin Said ayaa waxa uu ku sugan yahay waddanka Sacuudi Carabiya si uu wada hadal ula yeesho boqorka Sacuudiga Salman kadib markii isku dhac uu ku yimid isbahaysigii dagaalka Yemen ee ay labada wadan ku mideysnaayeen xiisadda ayaa waxa ay ka dhalatay kadib markii kooxda gooni u goosadka ah ee uu Imaaraadku taageero ay si rasmi ah ula wareegtay magaalada Cadan ee dalka Yemen dagaal maalmo qaatay oo ay kula dagaalamayeen xoogga daacadda oo ah dawladda oo wali dawladda Sacuudigu ay taageerto haddaba Yemen waxa ragaadiyay dagaal sokeeye oo ka socday waddankaasi muddo 8 sano oo u dhaxeeyay falagada Xuutiyiinta oo ay Iiraan taageerto iyo dawladda caalamku aqoonsan yahay ee taageerada ka haysa isbahaysiga dawladaha khaliijka Carabta oo Sacuudigu uu hogaaminayo haddaba madaxweyne Hadi ayaa waxa uu ku sugan yahay dalka Sacuudi Carabiya laakiin Cadan ayaa saldhig u ahayd dawladdiisa tan iyo markii Xuutiyiintu ay qabsadeen magaalada caasimadda ee Sanca 2014 xaaladda magaalada Cadan iminka waa ay degan tahay muuqaaladan hadda aad arkaysaana waxay ahaayeen kuwii ugu dambeeyay ee maanta in la qaaday oo muujinaya in ciidamada gooni-goosadka oo wadooyinka Cadan ku waardiyeynaya halkaasi hogaamiyahooda waxaana ay sheegeen in ay wali taageersan yihiin isbahaysiga ka dhanka Xuutiyiinta iyo inaanay ka bixin magaalada Cadan iyadoo uu khilaafkani sii dheeraanayo ayaa dagaalka sokeeye ee Yemen haddana waxa guud ahaan isbedelay asalkii dagaalkaasi sida uu ku sharaxayo arrintan wariyaha BBC-da ee Carabta Sebastian Asher sababta dhalisay aragtida gooni-goosadka ah ee koonfureed waa mid qoto dheer ku dhowaad 30 sano ayaa laga joogaa markii waqooyiga iyo koonfurta Yemen ay midoobeen waxaa iminka samaysmay isbahaysi asal ahaan marka laga tago danaha kale ee isbahaysiga kooxaha gooni-goosadku waxa ay la dagaalamayeen Xuutiyiintu iyagu marka ay qabsadeen Sanca waxa ay soo aadeen koonfurta Cadan ayay muddo kooban haysteen halka ay kooxaha gooni-goosadku kaalin mug leh ka qaateen dagaalkaasi waxay sii wadeen dagaalka waqooyiga ee magaalada Xudayda halkaas oo isbahaysigu gacan ka siinayeen kooxaha gooni-goosadka dhawaan ayay sheegeen in sidan ay doonayaan isla markaana wax kasta ay u marayaan waxay la tahay in sababta ugu weyn ay tahay in weeraradii ka dhacay Cadan toddobaadkii hore lagu dilay qaar kamid ah askartooda iyo taliye aaskii taliyaha ayuu dagaal ka dhex qarxay kooxaha gooni-goosadka iyo xubno kale oo ka tirsan isbahaysiga kooxaha gooni-goosadka ayaa u arkay in Sacuudiga uu u janjeero dhanka kooxaha islaamiyiinta ee Yemen waxa ay sheegayaan inuu jiro mashruuc dheer oo koonfurta loogu talagalay in laga dhigo goob ay islaamiyiintu xoog ku leeyihiin isla markaana ay iyagu ogolaan karin arrintaas dhammaan diyaaradihii ka duuli jiray Hong Kong ayaa la baajiyay iyadoo dibadbaxayaasha halkaasi ay ka dhigteen saldhig dhinaca kalena waxaa socda howlgal booliis oo ka dhana banaanbaxayaasha toddobaadkii tobnaad oo xasilooni darro ay ka jirtay Hong Kong booliiska ayaa xiray saldhigyo tareen oo ku yaalay magaalada Axadii iyagoo adeegsaday gaaska dadka ilmada ka keena oo xoog ku kala eriyay kooxaha dimuqraadiyadoonka dawladda Britain ayaa ku baaqday baaris in lagu sameeyo rabshadaha laakiin Beijing waxay uga digaysaa inaanay soo faragelin arrimaheeda gudaha Mawlid Xaaji Cabdi ayaa ka waramaya sidan ayay ku bilaabataa dhammaadka toddobaad kasta Hong Kong
waxay u beddeleen beryihii xayndaabka ahaa qaab farsamaysan waxay ku shaqaynayaan xawaare cajiib ah iyo iskaashi ma jiro wakhti badan ka hor inta aanu booliisku imaan dibadbaxayaashani waxay caan ka noqdeen waddooyinka Hong Kong caadiyan banaanbaxayaashu way cararaan iyagoo gambanaya laakiin fiidnimada isku dhacyada ka dhacaya goobo kala duwan oo magaalada ka mid ah ayaa ka sii dara booliisku waa welwelsan yihiin marmar waxayba samayn karaan ayaa iska yar tani waa xarunta tareenada dhulka hoostiisa mara ee Taikoo halkaasi oo booliisku xireen dibadbaxayaasha garaaceenna jaranjaradana ka tuureen xogayaha arrimaha dibadda Britain Dominic Raab ayaa ku baaqay baaritaan madax bannaan oo lagu sameeyo tallaabooyinka booliiska waa mid ka mid ah shanta dalab ee dhaqaaqa dibadbaxa laakiin faragelintiisa ayaanay ku qancin Shiinuhu kuwaasi oo ku eedeeyay Britain inay faragelinayso arrimaheeda gudaha kuwa ayaa weli rajo ka qaba wax uu nuuc taageero shisheeya oo rabitaankooda ku yimaada xaqiiqdu waa in kastoo inta badan kaligood leeyihiin doonistooda kana soo horjeedaan Shiinaha oo dulqaad la'aantiisa kordhayso kaasi oo ka digay inaanu faraha ka laaban doonin haddii qalalaasahani sii kordho bal markan aynu eegno qodobada kale ee ku jira wararka caawa ku dhawaad 150 qof ayaa daadad ay ku dileen koonfurta India roobab xoog leh oo da'aya iyo dhulka oo go'ay ayaa ku qasbay in ka badan 100,000 oo qof ay gabaad ka raadsadaan xeryo samafal ku dhawaad kala bar dadka dhintay waxa ay ka dhacday baa dhimashada gobolka koonfureed ee Kerala halkaasi oo daadadka iyo dhulka go'ay meelaha qaar ay godoomiyeen inuu dhashay dalka Norway oo looga shakiyay inuu dilay walaashii uu rasaas ku furay masjid ku yaal meel u dhow Oslo ayaa beeniyay inuu doonayay inuu dad dilo waxa la baarayaa arrintiisa oo ay suurtagal tahay inuu ahaa ficil argagixiso booliiskuna waxay sheegeen in ninkan oo 20 jir ah uu horey u sheegay fikradaha xaq jirka ah iyo in soo galootiga uu necab yahay weerarkaasi ka hor Kashmirta India maamusha ayaa u dabaaldegaysa munaasabadda Ciidda Adha iyadoo oo Srinagarkana uu xiran yahay wararku waxay sheegayaan in masaajidda waaweyn balse ay xirnaan doonaan kumanaan kun oo ciidamada India ayaa roondo ku sameynaya jidadka waxaana ka dambeysay markii mudaharaadyo ay ka dhaceen halkaasi oo ku saabsanaa go'aankii lagala laabtay maqaamkii u gaarka ahaa gobolkaasi oo siinayay xoogaa ismaamul ah Australia ayaa lagu wadaa inay kordhiso wax soo saar agab oo naadir ah kuwaasi oo ah kuwa muhiim u noqon doona soo saaridda alaabada farsamada sare leh iyadoo oo uu sii kordhayo shakiga alaabada Shiinaha xiisada ganacsi ee taagan awgeed Shiinaha oo maamula inta badan alaabada adduunka ee laga sameeyo qalabka kala duwan ee farsamada sida cobalt ayaa waxa uu ka digayaa in ay yareyn doonaan qalabkaasi haddii dagaalka ganacsiga Washington uu sii socdo dalka Zimbabwe koronto la'aanta ayaa ka sii daraysay iyadoo maalintii habeen ay uga dhigan tahay shirkado badan oo ganacsi oo intooda badan shaqooyinka qabsada habeenkii waxa laga cabsi qabaa in dhaqaalaha awalba liitay ee wadanka Zimbabwe uu gabi ahaanba istaago haddii ay sii jirto koronto la'aanta wadankaasi warshaduhu waxay ku shaqaynayeen kala bar iminka awoodoodii halka ay shirkaduhu ay bilaabeen in shaqaalaha ay dhimaan waxaana warshadaha koronto la'aanta ay mararka qaarkood haysataa 18 saacadood Faadimo Warsame ayaa ka waramaysa qadadkan korontada ee dhaadheer lama isticmaalo caasimadda Zimbabwe waxay galaysaa mugdi ilaa bishii May dalku waxa uu wajahayaa koronto la'aantii ugu xumeyd muddo 3 sano ah qof walba waxaa lagu qasbay inuu qorshe degsado si uu wax u cuno qaac baxaya baad arkaysaa mararka ay ugu daran tahay koronto la'aantu waa 18 saac maalintii jidadka magaaladan waxaa la arki karaa shumacyada ay dadku shitaan xaalkuna ma wanaagsana telefoonka isgaarsiin ahaan uma isticmaalno waxaan u kaydinaa tooshkan si caruurteenna ay uga shaqayn karaan shaqada iskuulka si ay u arkaan waxa ay qorayaan xitaa marka ay timaado wax karinta koronto maba isticmaalno marna isma lahayn halkan ayay gaaraysaa markaad eegtana wax hagaagaya uma eka muddo 2 toddobaad ah wax soo saarka warshadda ugu weyn ee saliidda ayaa gabi ahaanba istaagay waxaynu soo booqanay warshadan oo ah midda ugu weyn ee saliidda cuntada soo saarta matooradu way dansan yihiin
waxa ayna lumiyeen in ka badan $1 milyan ilaa markii koronto la'aantu ay bilaabatay. Shaqaalaheedu waxay nadiifinayaan mashiinada iyaga oo korontada sugaya. haddii ay arrintan sii socoto waa inaan qorshooyin degsannaa oo aan xirno warshadda dadkana lacag yar siino taasi oo dhaqaalaha saamayn doonta mar kale lacag badan ayaan ku maalgelinay waan sugaynaa ilaa korontadu ka soo laabato. Adeega korontada ee qaranka waxaa haysata dhibaato ba'an. 100 milyan lacag ka badan ayaa lagu leeyahay inkastoo dhawaan 3 jeer qiimuhu kor u kacay haddana waa kuwa ugu hooseeya gobolkan dawladuna lacag ayay ku biirinaysaa. carada iyo jahawareerka waa wax la fahmi karo laakiin waa inay noqotaa hay-addu mid shaqaynaysa lacagta aan ka qaadno weli waa yar tahay mana haysano agab nagu filan. shirkadda korontadu waxa ay bilowday inay iska bixiso deen muddo dheer ay ku lahayd Koonfur Afrika taas oo wadada u xaartay inay wax soo dejistaan laakiin tani waa xal ku meel gaar ah. qoysaska Marshall Jikasha waxay sii sugi doonaan bal xilliga ay dhammaan doonto koronto la'aanta. mar walba waxaad nagala socon kartaan BBC Somali oo aad nagala socon kartaan boggeena BBC News Somali iyo weliba Facebooka, Twitterka, Instagramka halkaasi oo aad muuqaalo iyo falanqayn dheeraada aad ka heli karto. wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya caalamka sidoo kale ayaad kala socon kartaa boggaasi oo dhan. wali waxay noo soo socdaa qaybta dambe ee barnaamijka aad ku daawan doontaan warbixin aanu ku eegayno haweenka Sacuudi Carabiya oo dabarkii laga dabciyay. waxaan is weydiin doonaa su'aasha intee ayay gaarsiisan tahay xorriyadda ay helayaan hablaha Sacuudiga. waa qaybta dambe ee barnaamijka wax yar kadib 2 daqiiqo kadib ayaanu isku soo laaban doonaa ee hanaga tagina. wali waxaad daawanaysaa barnaamijka caawiya caalamka waxaan ahay Farxaan Maxamed Jimcaale aan xasuusiyo qodobada wararka ugu waaweyn. isbaaysiga Sacuudiga hogaaminaya ee dagaalka Yemen ayaa kala qaybsamay iyadoo gooni goostada Imaaraadku taageerana ay la wareegeen gacan ku haynta dekedda Cadan. kala eriyin ayaa ka socota Hong Kong kadib 10 toddobaad oo isku xiga oo dibadbaxyo ay sameeyeen dadka dimuqraadiyadda doonka. Beijing waxay uga digaysaa Britain inaanay soo faragashin. dalka Sacuudiga ayaa dhawaan waxa uu ku dhawaaqay xorriyad dheeraad ah oo la siinayay haweenka laakiin wali waxa jira walaac sharciga cusub ayaa u ogolaanaya dumarka da'doodu ay ka weyn tahay 22 inay baasaboor dalbadaan fasax la'aan. haweenka ayaa sidoo kale waxa la siiyay xuquuq ay ku diiwaan gashan karaan dhalashada ubadka guurka iyo waliba furiinka balse wali toosh ayaa saaran nidaamka Sacuudiga. Aisha Afrax ayaa ka waramaysa. digreeto boqortooyo oo ka soo baxay dalka Sacuudiga ayaa sheegaysa in dumarka ka weyn 21 sano ay baasaboor dalban karaan ayna safri karaan iyagoon fasax uga baahnayn maxramkooda. nidaamka kafaalada Sacuudiga wuxuu sheegayaa in dumarka oo dhami ay u baahan yihiin qof rag ah oo go'aanada waaweyn u qaada kaasoo noqon kara aabahood ninkooda mararka qaar wiilka ay dhaleen ama nimanka qaraabadooda ah xataa. dumarku hadda waxaa loo ogol yahay inay isdiiwaan gelin karaan marka ay guursanayaan ama la furo taasina waxaa loo arkaa tallaabo weyn oo lagu burburinayo nidaamka kafaalada. waxaa dhacay isbeddello waaweyn marka la eego 12 bilood ee la soo dhaafay. waxaan aragnay dumar ciyaaraha kubadda cagta ku fiirsanaya garoomada markii ugu horeysay sidoo kale waxaa loo fasaxay inay gaari wadan karaan. si xamaasad ku jirta ayay dadka baraha bulshada uga falceliyeen iyagoo isticmaalayay hashtagyo caan noqday iyo sawirro muujinaya dumar u sii cararaya madaarka iyagoo sita boorsooyin fara badan. hase yeeshee weli waxaa jiro walaacyo fara badan. dadku waxay farta ku fiiqayaan sharciyada weli jira. dumarku weli waxay u baahan yihiin ogolaansho inay guursadaan ama ay kaligood noolaadaan. fasax ayay u baahan yihiin inay kaligood ka baxaan isbitaalada. xataa xarumaha dumarka ka soo cararay dhibaatooyinka guryahooda weli waxay u baahan yihiin in uu nin u saxiixo inay ka bixi karto xaruntaasi. qofka ka dambeeya waa 33 jirka dhaxal sugaha ah Amiir Mohammed bin Salman. wuxuu ka hadlay xoojinta dhaqaalaha dumarka waxaana jira yoolal uu tiigsanaya 2030 oo ay ka mid yihiin inuu doonayo in goobaha shaqada ay dumarku ku soo bataan.
dhanka kalese dumar badan oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda dumarka sacuudiga ayaa ama la xiray ama ay dalka isaga carareen lujayn al-huduul miithaal ahaan waxay ku xirantaa xabsi ku yaala sacuudiga waxayna hogaaminaysa ololihii dumarka loogu ogolaaday inay gaari wadan karaan hay-adaha xuquuqda bani aadamka ayaana aad uga walwalsan sida loogula dhaqmayo xabsiga dhexdiisa sacuudiga ayaa aad isha loogu hayay 12 bilood ee ugu dambeysay marka la eego tacadiyada ka dhanka ah xuquuqda bani aadamka waxaa dhowaan dhacday in saxafi sacuudiga u dhashay Jamaal Khashoggi lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada Istanbul Khashoggi dilkiisa dunida oo dhami ayaa ka dhiidhisay dumar ka badan 10 oo u dhaqdhaqaaqa bulshada ayaa iyagana la xiray 12 bilood ee tagay sidoo kale warbixinta caalamiga ah ee jinsiga ee soo baxday 2018 waxay sheegaysaa in sacuudiga uu ka mid yahay 10 wadan ee dunida ugu xun ee uu qof dumar ah ku noolaan karo marka waxyaabahaas oo dhami la isku daro waxay abuurayaan jawi horseedaya in sacuudiga uu ku qasbanaan doono inuu ka jawaab celiyo su'aalaha ku aadan sinaanta ragga iyo dumarka maasan caasha bal markana waa faaqdaadii ciyaaraha Cusmaan Cabdi Xasan ayaa idinku wareejinaya Cusmaan mahadsanid farxaan faaqidaada caawa aynu ku bilaabano horyaalka Ingiriiska ciyaartii Norwich iyo Liverpool oo ay ku badisay 4 iyo halka Liverpool ayaynu ku bilaabatay horyaalkii sanadkan sabtigi iyo xadina dhowr ciyaarood ayaa dhacay Man City iyo Liverpool iyo Man United si cajiib ah ay u guuleysteen Steve Bruce iyo Frank Lampardna guuldaro ayay kala dhaqaaqeen horyaalka Ingiriiska ciyaartoodii ugu horeysay Maxamed Axmed Deysane ayaa igala qayb galaya barnaamijka caawa Maxamed waad aragtaa sidii loo kala badiyay ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayaa dhacdo taasoo Liverpool 4-1 uga adkaatay Norwich Bournemouth iyo Sheffield Unitedna 1-1 ku kala tagay Tottenhamna 3-1 ay Aston Villa uga adkaatay Newcastle gurigooda ayaa Arsenal uga adkaatay Man Unitedna 4-0 ay Chelsea uga adkaatay West Hamna gurigooda ayaa waxa looga adkaaday 5-0 ciyaarta kale Man United dhaliil badan ayaa haysatay xil ciyaareedii hore balse hadda si cajiib ayay muujiyeen bal taana say ku timid Man United ciyaar aad iyo aad u xiiso badan ayay soo bandhigtay qaasatan qaybtii dambe qaybtii hore waxaa u malaysaa Chelsea inay gacan sarreysa ay 2 mar birta ku dhifteen inta badanna ku badeysteen gool toogashada ayaga ay ku fiicnaan laakiin ciyaartu waxay isbedeshay qaybtii dambe taasoo Man United u fududeysay enerjiga iyo dadaalka iyo adkaysiga dheeraadka ay la yimideen iyo Martial iyo Rashford oo aad iyo aad u cararay iyo Lindegaard gadaalna uu ka caawinayo Paul Pogba qaasatan goolkii saddexaad oo Pogba u dhigay Rashford oo si sahal u degsaday kadibna uu ka dhaliyay taas ayaa rajo tirtay waxa kale oo malaysaa Man United inay aad iyo aad u caawintay ciyaartooyga ay soo gateen Harry Maguire kaasoo 80 min ay kala soo baxeen oo ciyaartaas wax gool laga dhalinin oo gadaal aad iyo aad u adkeeyay oo u malaysay in Man United sanadka hore laga dhaliyay 54 gool ayaa sanadka hore laga dhaliyay sanadkan waxaan rajaynaynaa in goolashaas ay intaas ka yaraadaan oo waxaan ognahay Van Dijk 75 milyan markii laga soo bixiyay Liverpool difaacooda inuu isbedelay Man United waxaan rajaynaynaa difaacooda inuu isbedelo guul weyn ayayna gaartay taasna waxay dhibaato ku noqotay Chelsea oo Frank Lampard ciyaarta intaan la bilaabin taageerayaasha Chelsea ay u heysayeen laakiin heeskii waxa ka dambeysay 4 gool oo duudka loo saaray waa tahay Deysane taageerayaasha asaas qabaan u maleynaa mas adigna taageerayaasha ay ku jirtaa Harry Maguire sheegtay in uu ciyaartan ku soo biiray wixii uu soo kordhiyay la arkay ciyaartooy kale ayaa gool dhalinta wax badan ka qaatay xilli ciyaareedkan yaad nooga sheegi kartaa saddexda maalmood kuwii goolashooda ay cajiibka ahaayeen runtii waxa u malaysaa in ciyaartooydii dhammaan la dhahay gool dhalinta sanadkan ayaga qaaday inay ciyaarihii ugu horeysay ee goolal wada dhaliyeen Harry Kane oo 2 gool dhaliyay Sterling 3 gool inuu dhaliyay Mohamed Salah ciyaartii oo jumcadii uu dheelay inuu gool dhaliyay oo Mabayangi gool aad u fiican inuu lafsaantiisii dhaliyay Aguero oo gadaal ka yimid inuu gool kulaad uu dhaliyay waxa kale oo malaysaa Rashford lafsaantiisa inuu 2 gool dhaliyay marka waa la daba socdaa ciyaartooydii waaweyneed ee dhalinta ku fiicnay sanadka hore waxaan ognahay in 3 ciyaartooy ay ku guuleysteen waa tahay Deysane Mohamed Salah ugu dambeeyo waxa la arkay sawir isaga iyo cunug yar oo isla taagan ayaa baraha bulshada iyo meel walba socday bal taa maxay ahayd taas waxay ahayd Mohamed Salah oo u socdo tababar u socdo maalintii sabdigeed ayaa wiil yar oo Luis Salah ayaa ka soo daba cararay intuu ka daba ordayena
nalka birta nalka ayuu madaxa ku dhibsaday oo wiilkii yaray dhiig ayaa ka yimid maxamed saalaxna markuu arrintii maqle dib ayuu u soo noqday oo familigii wiilka ayuu guriga ugu yimid aad iyo aad ayuuna u maslaxeeyey oo wuxuu meeshaas ayuu wiilkii ku maslaxeeyey wuxuu dhahay raalli ahaw aad baad u mahadsan tahay daysan halka ay noo joogto waxa uu tartanka orodka ku soo biiray kadib markii uu daawaday maxamed faarax orodyahankaasi guuleed nuur waa wiil qaxooti ah oo orda ah orodka maratoonka ayuuna ordaa waa orodka dheer sanadkan ayuuna kaalinta koowaad ka galay tartanka maratoonka ee qaahira waa kan isagoo maxamed xaraare uga sheekeeyey oo qaahira kula kulmay waxa uu higsanayo mustaqbalka waxaan ka soo orday dhibaatooyinka waddankayga iminkana waxaan doonayaa inaan heer ka gaaro orodada dhaadheer magacaygana waa guuleed nuur xuseen hanka orodka waxaan bilaabay 2013 moo faarax asagoo ordaayo bay ahayd markii igu soo dhacday mal orodka isku day inaad bilowdid heerna ka gaartid orodkan ordo wuxuu ka bilaabmadaa 5 kilomitir ilaa 100 kilomitir oo waliba xadidneen intaan jeclaynaa ilaa 200 300 laakiin ilaa hadda maxaan orday ilaa 60 kilomitir saaxiibaday markaan u sheego orodka 60 kilomitir inaan ordo amaan ordo waxay isweydiiyaan say suuradgal ku dhacday 60 kilomitir maanta inuu qofka u ordo laakiin waxaan u sheegaa intaas in ka badan inaan maarta awood u leeyahay aan jeclahay inaan maarta heer ka gaaro waxaan ogaaday in orodkaasba ay ku jirto waxyaalo badan oo maanta ka caawin karto oo kamid ah qofka inuu isku buuqo inuu waqtigiisa malaayacni meel iskaga dhameeyo in maarta hatta noloshiisa caadiga shaqooyinka in maanta orodkaas ay faa'iido u tahay markuu qofka ordaayo intuu orodkaas dhaadheer ku jiro waliba waxyaalo badan baa jirkaaga ka baxaya aad dareemaysid inaad tahay mar walba qof jadiid ama qof cusub oo mar walba nolosha ama hammi weyn u leh ama nolosha inuu maarta ay waxyaalo badan ka qabsado sanadkan markaan qaaday Cairo Marathon runtii horta waan aamini waay qaaditaanka dareenkaas dareen la koobi karo ma ahayn aad baa maanta ugu farxay guul weyn bayna ii ahayd caqabadaha ay haysto maxaa ka mid ah anigoo haysanin qalab ama intii loogu talagalay qofka orodyahanada qalabkii iyo adeegii ama waxyaalihii u sahli lahaa dariiqa inuu gaaro guulka ama guulashuu doonayo nolosha inuu ka gaaro xagga orodka dhaadheer taasaa ugu dhibaato badan uu qofka la kulmayo mustaqbalka waxaan doonayaa inaan Soomaaliya matalo iyo inaan noqdo qofkii Soomaaliyeed ee masaafada ugu dheer ebed orda inta hay noo joogo barnaamijkii ciyaaraha anigoo Cusmaan Cabdi Xasan idin la socodsiinayay haye farxan ciyaartii caawa inta ay noo joogtaa wixii aan haynay inkastoo kuwa badan halkan iigu qornaayeen haddana waqtiga kugu yaraaday dartiis noo saamaxaynin laakiin haddana dib ugu noqdo ciyaarihii waxaad tiri toddobaadkan waxay ku bilowdeen rajooyin wanaagsan laakiin qaar badan oo ayagoo caraysan ka baxay baa jira waa jiraan inta caraysan badana marka aad wax wanaagsan sheegayso inka caraysan lama fiiriyo inta wanaagsan oo faraxsan ayaa lagu darsadaa lugta waa gartay marka sidaas daraadeed Liverpool waa aragtay wacdarahay dhigtay maalintii koowaad oo la wada fiirinayay iyaga oo awoodooda iyo inta ay la eg tahay marka taasi ku bilaabatay waan gartay aad iyo aad baad mahadsantahay Cusmaan Cabdi Xasan guud ahaan barnaamijka caawa iyo caalamka inta ayaa kusoo gabagabaynaynaa waad ku mahadsantihiin daawashadiina intaanu mar kale dib u kulmayno haddii ay baha awood leh ogolaado berrito habeen dambe talaadada waxaan iskaga tagnaa nabadgelyo